Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan saaxiibada qiimaha badan oo kusoo dhawaada janalka Hanaan English Officials. Waxaan ahay Ustaad Maxamed Deeq. Waxaan halkan idinkala socodsiin doonaa casharadii aad ka barateen janalka Hanaan English Officials. Maanta waxaynu soo qaadanaynaa qeybihii idiomiska ahaa, qeybteedii saddexaad, idioms part 3. Ereyga ugu horeeya ee idiomka ah idiomka ugu horeeya ee maanta casharkeena aan kusoo qaadanayna waxa uu noqonayaa prim over. Prim over waxaa loola jeedaa buux dhaafid. Markii ay shay biyo ku jiraan ama shay waxyaabaha at least dareeraha ah marka lagu shubo, waxaa marka ay ka bataan ayaa waxaa la adeegsadaa ereygan buux dhaafid ah. Tusaale haddaynu ka bixin waxa uu noqonayaa the cup is brimming over with water. The cup bakerigu is brimming over waxaa buux dhaafinaya ama ka buuxsamayba with water biyo. Casharkeena kusoo qaadanayna waxa uu noqonayaa bring about. Bring about waxaa loola jeedaa sababid, wax inay wax sababaan shay ama at least wax un waxa ay noqdaanba. Example waxaynu ka dhigan kar dhimasho. Constantly smoking, cabista joogtada ahi ee sigaarkahi. Bring about waxa uu sababaa death, dhimasho. Example waxa uu noqonayaa constantly smoking, cabista joogtada ah ee sigaarka. Bring about waxa uu sababaa death, dhimasho. waayahay idiomka saddexaad een casharka kusoo qaadanayna isagana waxa uu yahay bring back. Bring back means soo celin waaye. waxaa loola jeedaa inaad wax soo celiso ama aad u adeegsato at least erey soo celin. tusaale haddaynu ka bixino waxa uu noqonayaa may I borrow your pen. qalinkaaga ma kaa amaahan karaa? I will bring it back tomorrow. beri aan kuu soo celinayaahe qalinkaaga ma kaa amaahan karaa? waa tahay idiomka afraad aynu maanta casharka ku qaadanayna waxa uu yahay ereyga bring down. Bring down means waxaa loola jeedaa soo ridid. inta badan soo ridid ama ha ku yimaadaan si cadaadis ah waxaas ha kusoo dhacaan ama si kale ha kusoo dhacaan. inta badan ereyga bring down waxaa loola jeedaa soo ridid. tusaale haddaynu ka bixino the storm brought all the trees down. The storm, dabayshu, brought all the trees down. waxay soo riday dhammaan geedihii oo idil. way soo riday yacni. waa tahay ereyga kale maanta idiomka casharkeena maantaan kusoo qaadanayna waxa uu noqonayaa ereyga bring out. Bring out sidoo kale waa daabicid. waxaa loo adeegsadaa daabicid. tusaale haddaynu ka bixino waxa uu noqonayaa better printing center brought out this book. madbacadda beder ayaa waxay daawacday buugan. Better printing center, xarunta madbacadda ee beder ayaa brought out ayaa daawacday this book buugan. End of part 3. Thank you.